بسم الله الرحمن الرحيم. waxaan idin aqrinayaa war-saxaafadeed ka soo baxay dowlad goboleedka Hirshabelle gaar ahaan wasaaradda dastuurka iyo arrimaha federaalka ee dowlad goboleedka Hirshabelle. hase yeeshee war-saxaafadeedka ka hor dowlad goboleedka Hirshabelle iyadoo dhowraysa dastuurka dowlad goboleedka Hirshabelle dastuurka qabyada jamhuuriyadda federaalka iyo shuruucda kale ee dalka waxay si cad uga hor imaanaysaa qoraal la sheegay inuu ka soo baxay wasaaradda arrimaha gudaha xukuumadda federaalka oo lagu sheegay inuu yahay habraaca doorashooyinka dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka ah habraacaas oo si cad uga hor imaanaya dastuurka dowlad goboleedka Hirshabelle. haddaba wasaaradda dastuurka iyo arrimaha federaalka ah waxay soo saartay war-saxaafadeed maanta oo taariikhdu ay tahay 26 bisha shanaad 2019 war-saxaafadeed kadib markaan aragnay warqad ka soo baxday xafiiska wasaaradda arrimaha gudaha jamhuuriyadda federaalka ah ee Soomaaliya ee ku taariikhaysan 25 May 2019 taas oo lagu shaaciyay habraacyada doorashooyinka dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka ah. wasaaradda dastuurka dowlad goboleedka Hirshabelle waxay go'aansatay inay cadeyso mowqifka dowlad goboleedka Hirshabelle markii la tashatay madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabelle kadib markaan aragnay dastuurka kumeel gaarka ee jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya qodobkiisa 120aad ee qeexaya hay'adaha dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka ah. labo markaan aragnay qodobka 25aad firqadiisa afraad dastuurka dowlad goboleedka Hirshabelle markaan aragnay qodobka 20aad firqooyinkiisa koowaad iyo labaad dastuurka dowlad goboleedka Hirshabelle markaan aragnay qodobka 61aad firqadiisa afraad xarafkiisa D ka oo qeexaya sharciga guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka dowlad goboleedka Hirshabelle. haddaba wasaaradda dastuurka dowlad goboleedka Hirshabelle markay aragtay qodobada kor ku xusan waxay walaac fara badan ka muujinaysaa warqadda ka soo baxday wasaaradda arrimaha gudaha ee ka soo baxday taariikhda kor ku xusan inay baalmarsan tahay hanaanka federaalka dowlad wanaagga iyo daadejinta nidaamka dimuqraadiyadda dalka. waxay sidoo kale ka hor imaanaysaa dastuurka jamhuuriyadda federaalka ah dastuurka dowlad goboleedka Hirshabelle iyo dhammaan shuruucda kale ee dalka u yaal. dhammaad wabillahi tawfiiq.